qiso cajiib ah. Aabbahani waxaa la weydiiyey xaramka sidee ku timaaday, halkeese ka keentay lacagtan. Wuxuuna ku jawaabay, waxaan iska iibiyey sandaqad aan deganaa iyo dhulkeedii. waxaana mar kale la weydiiyey, maxaad sidaas u samaysay oo aad iskaga iibisay? waxa uu ku jawaabay, inaan Allah baryo. yaa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. سبحان الله العظيم. باع بيته. waa aabbo mudan ku dayasho. ogowna aabbahani ma lahan wax awlaad ah, sidoo kale xaaskiisana mar hore ayay geeriyootay. waana aabbe waayeel ah, mudanna in lagu daydo. run ahaantii wakhtigan islaamku waxaa lagu jiraa wakhti ay ciriiri tahay in ummaddii islaamka ahayd ay isku duubnaadaan. wadamo badan oo islaam ahna colaad iyo dhibaato iyo abaaro ay ka jiraan. waxaan ilaahay ka baryaynaa in ummadda islaamka dhibaatada iyo culayska haysto uu ka qaado. aabbahanna waxaan leenahay bedel khayr qabo, ilaahay ha siiyo, maadaama uu sameeyey ficil ay mudan tahay in lagu daydo. waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa inaad muuqaalkan sii sheergaraysid si uu dad badan u gaaro. waanad ku mahadsan tahay daawashadaada. mahadsanid.